السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدأ كلنتي وناس كل سود برامج كان كل وذاك الشيكوين حساب بدنا بوليوود كي كونفر هندي محاك عصب جنين كدم مانتي جنين كهرباء عوانا وحي استمامة جيدتي آشا بوسلي oo gobolka Maharashtra dabcan lagu sameeyay aas qaran dhamaan wasiirada kala duwan ee India madaxda isku imaadeen jilayaasha firaaqaheena goobta imaadeen dan kadib maamada xoogaa ducay uns waxba u sameeyeen ugu dambeyntii gaariga lagu qaaday dabcan iyadoo calanka India lagu aaska qaran loo sameeyay kadibna waxa la geeyay meesha cremationka lagu sameeyay ama hinduuga lagu gubo maadaama Asha Busle ee dabcan ahayd hindu meeshaas lagu dibtay marka maamada geeyay hal gubay oo qurux badan waa dabcan loo sameeyay marka hore garbaha lagu soo qaaday kadib la gaari ambalaas saare naxashkeedii calanka India saare maamuuska sameeyeen laakiin ama marcada ku geeyaan ama naxasha ku geeyaan ama calan India saaraan kulli waa qasaartay Asha Busle maadaama 92 sano 93 sano ee geeriyootay iyadoo hindu ah 80 sano ee fanka ku jirtay sidoo kale dabcan 12,000 oo heesay ka badan ee qaad marka legend dhanka fanka waa ka baxay oo heesaha Bollywoodka laakiin ayada qasaare ku sugnayd markii la fiiriyay dabcan da'da ay ku dhimatay iyo inay hindu ahayd iyo in la sii gubo marka waxa waa India dhaqankooda meeqan u soo jeedo daraaman dare iyo Vinodkan iyo Rishi Kapoor rag badan oo dabcan geey la gubay saadartay marka hadda Asha Busle ayadana goobta la geeyay cremationka waa lagu soo kala baxay laakiin aas tacsi waxa loo sameeyay oo isku imaadeen jilayaasha Bollywoodka American oo kala arkay Vicky Gushra arkay Ranveer Singh arkay adu wixii Bollywood oo firaaqo haysta oo Bombay joogay waa tageen goobta si ay dabcan familka reer Busle ugu soo dabcan tacsiyaan kadibna kiiskaas waa dhamaaday saaxiibayaal meeshaas uu ku xiran yahay aragtidiina ee ka dibta marka waxaan soo qaadanaa superstar-ka caanka Akshay Kumar filimkiisa oo ka faqan gudiga filimada Fafreeman shahaadadii lagu daawan lahaana waa la sii waqtigu soconaya shaac laga qaaday maalinta Brita waxa la bilaabay doonaa tigid iibsashada 16 bisha Khamiista waxay noqon gelinka dam waxay noqon doontaa in filimkan loo sameeyo doono Bayed Premier la daawan doono 12 bisha Jimcaadana toos loo daawan doono saadartay waxa la markii in muddo kadib tan iyo markii filimka caanka Durundaru iska baashaar 4 isbuuc oo shaleemooyinka saarnaa bil iyo ka badan hadda ugu dambeyntii waxa soo baxay filim weyn oo Akshay Kumar hogaamiyay oo horror comedy ah sheekooyinka aad iyo loo jecel waxa la siiyay US 16 plus qof kasta daawan kar laakiin qofkii da'diisa ka wintay 16 sano iyo dabcan ayaa shaleemada aaday kar 16 sano wixii ka hooseeyay inuu qof mas'uul u la socdo shaleemada iskama gali karo sidoo kale tan filimkan wuxuu qayb ka noqonaa Akshay Kumar filmadiisa uu waqtiga dheer dhawaanahan uu sameeyo maadaama 2 saac 45 daqiiqo filimkan uu soconaa ama 165 daqiiqo ayuu soconaa sida shaac laga qaaday marka Kumar buud bangala shahaadadiisi waa la siiyay bariya darsana director-ka shactire iyo horror waaye bariyahan promotion waa li u sameeyay waxay noqon doontaa xugminta 17 bisha markuu soo baxo ama 16 ganinka dambe la daawado sheekadii sida loo amaana ganacsiga uu sameyn doono odaga ma soo laaban doonaa guushii Durundar 2 iyo taariikhdii uu ka tagay waxay noqon doontaa Bollywoodka markale inay maqaayada ka dambeysay waa sidii Durundar u shida meesha noqon doontaa su'aalo badan la isweydiinaa kulli hadda Kumar ku soo wareegtay mas'uuliyadda aan sugana marka saaxiibada filimkan sidoo u gadmi doono u gadmida shaleemada la saaray xitaa waxa ka horeeyay xugminta bari oo ku aadan sidee projectiga dabcan loo soo dhaweyn doonaa dhanka advance book tigid iibsada talaada maadaama tigidka albaabka loo furay dhinacaasi Hollywoodka iyo soo kala gudaha India project Hail Mary wuxuu sameeyay dabcan huge achievement 500 karar ayuu ka tilaabay saaxiib 500 milyan oo dollarka Mareykanka ayuu ka tilaabay World War Gross gudaha Hindi xitaa bigiidu ka noqday Ryan Gosling filimkiisa science fiction ka marka waa success story guul oo dabcan sheeko oo sanadkan si weyn loo jeclaaday sida muuqato filimkan wuxuu qayb ka yahay filimada dabcan sanadkan 2026 top box office ka maadaama 500 milyan oo dollarka Mareykanka uu ka tilaabay globally sidoo kale tan gudaha India 65 karar ay filimkan ka tilaabay 50 karar lacagta nadiifka ayuu dhaafay taas oo ay ka dhigan tahay marka filimkan guul lixaad ayuu gaaray 18 cisho gudaha India uu saaran yahay suuqada caalamkana ka badan almost 3 toddobaad uu saaran ama 21 cisho iyo ka badan saadartay marka 510 milyan oo dollarka Mareykanka ayuu maray wuxuu ku gaaray 4th weekend-giisii afraad ku gaaray sida Durundar 2 oo kala mid ah 28 cisho suuqada caalamka laga daawanaya lacagta markii la fiiriyo markii la dhaho international market kor si adag ka gadnay hadii la kala qaybiyo xitaa equal waa inta badan naadir waa filim gudaha waqooyiga America iyo suuqada caalamka isku mid ka gadmaayo waxa sameeyay project Hail Mary 250 milyan ayuu mid kasta ka soo xareeyay taas oo ka dhigantay marka gudaha waqooyiga America blockbuster ka noqday suuqada caalamkana blockbuster ka noqday Ryan Gosling teamkiisa waxa hadda wax sida muuqata filimkiisa project Hail Mary waxay u badan tahay in uu gaari doono 650 milyan oo dollarka Mareykanka inuu ku istaagi doono si u badan tahay filimkan waxa director-ka Phil Lord iyo Christopher Miller laba qof oo director-ka science fiction kan dhibka badan juhdiga faraha badan saaxiibayaal ee laga maray dhinaca kale waxa soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka markaan si gaar u eegno saaxiibayaal waxaan u jeedaa Pawan Kalyan waxa la Vijay maxaa tala siinaysa maadaama Vijay Pawan Kalyan shan tilaabo dhaafo baaskiil la wada qumba lacaba oo kiyala la gashanaya wax walba uu sameeyay kataara la garaacanaya Pawan Kalyan markuu wuxuu dhahay ani inta badan dadka wuxuu dhahay talamasi laakiin wuxuu dhahay Vijay he is a big star waa wuxuu dhahay atooro weyn waaye
needs no advice talo iga baahan yahay male sababta wuxuu wax allaale wuxuu sameeyay waa wuxuu asigu arku ka dhawaaji inuu ku guuleysanaa bawana waagi uu ahaa musharax xitaa waxa la xasuustaa dhowr kiiloomitir caga cadaan lugay intuu meel mandara aada uu wax kasta uu sameeyay odaga xataa waa cuntada waa ka go'ay soom ahana si kastuu sameeyay iyo sheekooyin xoogaa jilin waa sameeyay ugu dambeyntii waa guuleystay marka bawana ayaa banfijay wuxuu leeyahay أنا وفريق ديريها حزب ستيف في كي صدق لا تكبش أنا دورش ده قلت وانا ساحب بيال وبون في جي عندهم يروحوا لكل من دونه لكن بون هرو يقول استبندر وجفا وابا كحيين كلا بعد جيف منستر وصر يعني أنا برادش تلنجانو وحكي كحيين أوكي مركم سياسة ده هرو جاري في جي محس 3 سنين وحوده نورمال أنا يقف أن 3 سنين مجتور لكن مركي في جي نقطة ده وأتورون ولا سوبر ستار نع تياتر كقول استين شعبيد واللي لهم صفار وحولتك وحتصود أود ولا سد لوج عليها سادرته وحده مركب وحام وقتو ده إنه جولة بدن وجاري كالسيم وقت ما كان نصيب عنون ورجع وأركض أنا مركب في جي يجوش سالك إيجار دونتو إن عكلا يركان في شواك سين ده فيلم مواي نيكي هذا عن ديفر نيكي سمية أي أودي بي أو كش نيكي دايركتور كأودعا إيشاج أو ديفر سمية كورتالا سيفا أي فيلم كان بروديوسر كوانا فيلم كصدحات أو كورتالا سيفا ومال قليم هذا في شواك سين مشروع عنه جامين أيو سنة كان شقهان لوكا لبيح دونا يركان فيلم مواي سيد مقطع ولا في شواك سين فلوب كيسن واسكوتا في عيسنا كمهرم ما أنت الشوتين كان أيوب بالله فيلم كان أو طبعا كورتالا سيفا إسكاليه وبروديوسر كي أما دايركتور كي بروديوسر كي فيلم كي ديفر إسكالهاي بروجكت كان طبعا وحنا نقنا فيلم كلاته oo loo arko inuu gadmi doono Hyderabad shaqada ka bilaabatay new age rom-com waa shactiri iyo jacayl markii la dhaho inta badan ba aad ugu fiican yahay Fishwak Singh Rajaf gabar lagu magacaabo waxay ka tahay oo director waxa ka Rajaf Ravi Shankar oo filimkiisa ugu horeey uu noqonay director uu ka noqdo marka Fishwak Singh aan sugan doonaa iyo filimkiisa sida uu gadmi doono iyo hadal haynta dhalin doona laakiin ninkan waxa waay wuxuu ka mid yahay atoorayaasha waxba aan weyno tartiibtooda iska qaraabto sida muuqato dhinaca kale rock star yaash filimkiisa daawadayaasha kama badan toxic oo 4 bisha June aaday وعلى صوت دابع OTT ديل كم حق الصورة قال إلا هذا صوبته ميجا موفي وفيلم كان آد لو سجاية دورندر 2 طبعا جاب كسي أفرت جون وسجالة طبعا مارس على الدولة تبعت كي عيد الفدرجة وأسوق جويسا كور قبنا سادرتي هاتم ورر كل الدول كونفور هندي كصوب بحين وحلياش طبعا ميجا ماني العق فربنا يوربا إنه كور OTT ولي وحلا بندق اللي بلاتفورم OTT العق جاري صوب بقول إيون طبعا قرار لكن ما كريسكو على العقد سيتو حيربان كبدن أي ربان سد هذا مقطع بقول طبعا قرار ما قادتين وعلى however ديماني نيال دبل دات أماونت العقد لو لاب كده معناها بقول طبعا قرار لاب بندقة لو بقول إلا ما تنكر وبهنا OTT ياش حريف بواي وحور ومية فيلم إنت عشان لما السنة العقد سنة ولا بتو كل وحلا بيك كمباني سدا أمازون وكالة نتفليكس جيو استوديو زي وحترتنا السعودة على تعال مركب بقول طبعا قرار هذا الشيء كمباني أنا الشيء إنه أصاب بندقة لكن ياش تيم كسويد دي حدا سوا ونوصل قلدنتين توكسيك حدا بقول طبعا مقام OTT وعن أبهنا لو بقول كنتن قرار مركي ياش لقى تجاني وحدا عن دايركتور فيلم كان جيتا مهندس هالك نيانترا كيار أدفاني هما قريش تارا سوتاري يروك ماني فسنتين كوجران مركو عن سجند ديلك وهلي دونا يسدوا على كلا فرسمين دار مرك إذن كان عرفتيدين كديبته ساعد بالمركو عن سوق قادنا ديس ويك تدبات كان فيلم هذا OTT اللي سوق لنا فيلم أدو حسب بدنا أكشن يسوق على كونتنت أورينتد كوشي كوي واقعية لسوق لين دونا لأن يرنمو أنا سلا أجن مركو فيلم هذا عاسي أو كله جامي كتهاي قبلنا دم عن فيلم هذا كونتنت قاعدته تبسي بنو فيلم كذا لسوق لنا برت OTT Z5 لسوق لنا طبعا يتدبر بشان أبريل جمعة نصوب حياة سده هاتن سانك إيصو دابعين لبا ساعة 8 دقيقة الصعنايا IMD ريتين تدبر دبيع سده على سي إنكستو شيء كذا لأمانة قبل لكوف صديق دباتي أبوكات ودوديسو عندنا هندية سفي عميسن وقرم ستاين كوميرشالي جنا عسام وفشلمه لكن OTT تدبات كان لقد داون دونا آسي سيد ديوان قشن أو تبسي بنوه جامي كتهم وعلى سوق عندنا كرا فيلم كلجوم مجعب السحب بيال أستاذ بقت سين كان وحبون كليان وين كفيلم كوجو ما تدبات كان صوب بحي وأمود السوق إن السحب بيال أسيج نتفليكس لقد داونا لحي 8 بشان أبريل وقميص مركز جمعة السوق جلس يا السوق جلين دونا لبس ساعة برو صعنا يا IMD ريتنج كباب وشيك هان أفر دبيع سجالة لسي 8 كدي عود حلوقي من لكو حنا جال ماله بوان كليان يجلين كيسان كل راح يصن دونا يصير فيلم كان وماسويهم فيلم هذا كله صوب بحين وحاكم إذا فيلم كلو مجعب توستر كان دايركت OTT واي وداك كوميدي شعتري حوجا عبس واحد سود هجر وعدية أو سود هذا مقطم وحنا هو جامي كراج كمار راو فيلم كان داود ياش كما بدو حل والشعتري حوجا واحد سود هجر وحتوي إيو سايا مال هوترا كل جرتو نتفليكس على قد داونا وحنا السوق لين دونا شن إتمن كبشان وحنا السوق لنا 4 طبعا مركي 4 قميص سوق لسه توستر ودايركت نتفليكس وهذا فيلم كان شلي ولا مسارين
laba saac oo soconaa 2 hour aan sugana marka Toaster Rajkumar Rao iyo Sanya Malhotra waxa kale oo soo qaadan karnaa filimkii Dood Diwana Saherman kana aan meel ugu calaamaysay sheeko jecel dhalinyaro ah waay Munal Thakur waxa wada jiraan yarkii dabcan jilinku saaxiibka laakiin ilaa hadda waa kicilaa yarkan asigana Saddamti Jutrafeedi Dood Diwana Saherman filimada sanadkan soo baxay kamid ahay toddobaadkii adigu wuxuu soo baxay 14 Abriil meelahaas uu soo baxay wixii ka horeey 20 Abriil 20 Febraayo soo baxay filimkan laakiin fashil ku dhacay Dood Diwana main Seher iyo Asi waa la isla saaray labadaba waa gad mooy laakiin iska romcom iyo sheeko iyo waa inuu iska anfac waa laga yaabaa waa ku tuuran karnaa marka waa ogaan doonaa asiga Netflix la soo gelinaa 17 bishan uu soo baxay isbuuc hore hadda meesha firaaqo ahayd waxa weekend waa laga soo buuxiyay sida hadda muuqato filimada kala duwan waxaas dhan inta iga dhaaftiin ma yaho aan dabcan isku imaano waxa daawan doonaa filimka Youth dhalinyarada Tamilka ah 2 saac 20 daqiiqo soconayo 7.4 la sii 10 dhibcood wax lagu qiimeeyo dhalinyaradan filimkooda gooni ugu calaamaysay aniga Youth waxa waa bilaash blockbuster uma noqon Tamil film blockbuster ka dhigan iskaarsa ma ahan مشروع مركز أسيجنا لحي تمن كبيشنا لسوق لنا خميس أو جمعة سوق جلس برتا نتفليكس لبس ساعة لا تندق الصعنات تدور دبي عفرة لسي تمن كدعوض حلو قيمة IMD ريتنج كم صدق الفيلم وحاجر الدايركت OTT أسيجنا وحلو مع متكا كينجي oo hogaamiye uu ka yahay saaxiibayaal ninka odaga Vijay Farma laakiin kan waa episode taxana waay 8 xalqa meelahaas ka kooban 12 bishana barta Amazon Prime Video la soo gelinaa marka asigana wuxuu kamid yahay filimada ee taxanayaasha kan ugu saameynta badan marka toddobaadkan cindag waay laakiin waxa ay weydiinaa saaxiibayaal hadda wallahi filimkii Tahay ka saafi maamadii baangada waa Tamilka oo dabcan 70 jirka ee beeraleyda ahayd kacdoon sameynaysa oo markay dhimatay miya ilmaheeda dhaxal u imaanayeen sheekadii Tamilka blockbuster ka noqon isbuuc hore la soo gelish internetka ma daawateen maxay iga qariseen wax daawado idahana 5 star waa isbuucan janan ay gana madaxna qabso digso shirkadii dhamaabo hal mara Vijay dabcan jadalkoodii qasam marka waxaan rajeenayaa hadii shirkadaha wax turjumaan saaxiibayaal Tahay ka saafi aragteen filimkaas noo soo turjumaya qabilash 70 karar 80 karar uu gaar maamadaas oo uu iska buurano baangada wadata beeraleyda qof karti badan ee kulli wal amaana sheekada ilmaheeda dhaxalka soo doonaa marka horena kala tagayeen hadii la fasirina ii sheegay meel u raasana waa raasana inaan daawada aga go'ane hadaa qofkii daawadana bal commentiga noo soo galo bal ra'yahana si waa in salaama saaxiibayaal dhinaca kale hadii aan sii fiirino waxyaabaha kale ee haatan jira soo qaadan karna waxa qaybka saaxiibayaal markii aan firino Faruun dhawaana waxa la directorka lagu magacaabo FIFA Agnihotri wuxuu kala hadlaa filimkii Operation Sindoor howlgalkii dabcan India qarsoodi ee Pakistan ka fuliyeen baabaanta isku amaanayeen in Faruun dhawaana hogaamiye oo ka noqda dabcan isla dhaxmara meesha howlgalkaas laba gabdhood fuliyeen laakiin hadda aase Bollywood waxay ka dhigaan laba wiil ma howlgalka ay ka dhigaan gabdhaha dhanbe ay ku boodaan sadartay marka Faruun dhawaana laga yaabaa korneeladii ama ayraad saraakiishii ciidamadii ayraad ragii la adeegsaday ee militariga ahay howlgalkaas fuliyay qayb inuu ka noqdo FIFA Agnihotri wada kulmeen sheekadana Faruun uu ka helay laakiin wali si wax official lagu dhawaaq ma jirto saaxiibayaal marka qiyaare muuqaalkan intaas nooga egyahay habeen wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh